وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وحير إن شاء الله توبة قالي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. ولا ليال إخواني وأخواتي في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كسر هذا برنامج كداعي الشو. ما أنت وحندين هنا وح عجيبة يقصاد يأد مهم وحقيقة إن بدنا مدة إسلامكم ومسلمين الصوماليات غير قلين دونتا كفر حين دونتا بليز قف كستو ولا صو قلي واحد سميسا شير له وقصو آد عجيب قفكي أي كود عضي حالديسينا ومانتا كجيرو أو إساقي ولايف يحي تلافنك أي لايف كتهي ولاشين قالي آدم كسو قشو انترنتك أما فيسبوكا walaasheen waxay ahayd muddo 2 sano ka badan Christian kadibna 2 toddobaad ka hor ayay ka soo noqotay oo Ilaahay subhanahu wa ta'ala uu ku soo celiyay islaamnimadii iyo diinta islaamka. fadlan qof kasta oo soo galay waxaan ka codsanayaa maanta barnaamijka Daaci Show waxa ka jiro xaflad aad iyo aad muhiim u ah. share dhaha walaalaha, share gareeya meesha shareka ku dhufta dadka kala gaarsiiya. haddeer macnaha waxaan ka hadlayo waa adigoo ku jiro share dheh si aad qisada u dhageysato. walaasheen ayaan insha Allah taala mar dhow noo fasaxaya iyada nala hadli doonta. waa walaasheen oo ka toobad keentay Kirishtaannimo muddo 2 sano ah. sababtii ku kaliftay wixii ay ahayd muxuu ahaye iyo inta ay ku jirtay wixii aragtay iyo qisada cajiibka ah ee ay uga soo toobad keentay ayada noo faahfaahin doonto. walaasheen soo dhow. Assalaamu calaykum waraxmatullahi mana maqashaa. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. وانكم مقلا سيفي أنا ينكم مقلا. ما شاء الله الله تبارك ما شاء الله. waxaan ku weydiinayaa markaaga hore in dadku ay maqlaan ayaan weydiinayaa. walaal soo qora insha Allah taala ma la maqlaa codka gabadha walaasheena. walaalaha soo qora insha Allah haddii aan la maqlin codka waan bedelaynaa. ma la maqlaa like iyo love wax yar dib u dhiga waxaad sameysaan ii soo qora ma la maqlaa walaasheen codkeeda. ها baa la soo qoray. ku soco walaal. marka hore waxaad ka bilowdaa insha Allah taala magacaaga iyo meesha aad joogto. walaal aniga horta dhamaan waan salaamayaa ummadda muslimiinta oo leefka ku jirta iyo adiga oo dadaalay oo leefka soo galiyay Sheekh Hussein waan kaaga mahadcelinayaa. Ilaahay baa mahadle jazakallahu khayran. waxaan ku salaamayaa salaanta islaamka. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وكاقان magacaygu waxa waaye waxaan ku soo gali jiray Facebook magac la yiraahdo qaali qurux aadan, laakiin magacayga runta aniga waa hodan suweer aadan. waxaan ku noolahay wadanka Sweden. ما شاء الله. hay taboori si fiican baa lagu maqlaa. waa gartay. waxaan ahaa gabar Soomaaliyeed oo islaam ah oo islaamnimo ku dhalatay oo waalidiinteed islaam yihiin diinta islaamka lagu soo koriyay. inkastoo aanan aqoon u lahayn diinta islaamka oo aanan baranin ilmi diinta islaamka aanan baran, laakiin waxaan ahaa qof ku dhashay jaahil baa ka ahaade diinta islaamka ku dhashay oo dadkeedu yihiin oo dad culumaa ka soo jeeda. Allahu akbar. ما شاء الله. inta aadan iman Sweden muxuu ahaay oo aadan qaxootiga ama ku iman noloshaadii hore qof aqoon diinta islaamka u lamaadan ahayn laakiin ahlu culimo iyo dad wanaagsan baad ka soo jeeday. maanan ahayn laakiin dad islaam aan ka soo jeedaa. siiba aniga dad culimo aan ka soo jeedaa laakiin anigu maanan baran diinta islaamka. waxaa dhacday in aan qaxooti ahaan ku imid wadamadan muddo aan fogeyn adigu dhawaan ah. cagta uma dhigin markaan wadankaan imaaday. shaydaanku qofku duufsanayo cidna lama tashanayo. waxa waaye waxaan ilaahay uma nasbeyn karo. waxaan dhihi karaa shaydaan ayaa i duufsaday. maalin maalmaha ka mid ah ayaan waxaan la kulmay qof Kiristaan ah oo gabar oo Soomaaliyeed. waxaan ka sheekaysanay waxay iiga sheekaysay diinteeda waxyaalaan ka wada hadalnay. waxay isisay kitaab
buug ay ku qoran tahay buugga quduuska ah oo ah Bible oo af Soomaali ah si fiican waxaa dhacday si hore waan qaaday buuggii meel baan geeyay xaafadaydan geeyay waan fiirin jiray dan badan uma aanan geli jirin laakiin shaydaan ayaa i watay maalin maalmaha ka mid ah waan soo qaaday waan kala furay akhris baan ku bilaabay waxaan ku jiray meel kaam ah weliba meel kaam ah ayaan ku jiray oo qof camal kala qabanaya maanan ahayn qof qaxootiya ayaan ahaa waxaan sameeyey in aan waqti geliyo waqti siiyo oo aan mar walba aqriyo baaro runtii aad baan uga argagixi jiray mararka qaarkood meelo badan markaan ka aqrinayo oo ilaahay u shariig yeelayo hase ahaatee markii dambeeto intii badneed sidaan u cabsanayay markii dambeeto waa ii fiicnaaday oo wuxuu ila noqday wax aad u fiican shaydaanka ayaa ii nuuriyey waxaan dhihi karaa imaamkaygii baa daciifay islaamnimadaydii baa daciiftay qalbigaygii baa madoobaaday waxyaalihii qaar oon ilaahay xaggiisa ahaa oo awal aan dhibsan jiray amaba rasuulkeena calayhi salaatu wasalaam aan diidi jiray oo jirku iga guban jiray oo arkay aan ku raaxaysanayo oo aan u bogayo oo aan akrinayo oo runtii anoo arkaya in oo dhibaatooyin badan ay leedahay oo dembi badan uu kaa soo gaarayo inaad nebiyada wax ka sheegtid maasha allah inaad rasuulka u gashid sallallahu alayhi barbaariyo aan maqalkeeda iga buuxo ayaan haddana u bareeray oo shaydaan ii maleeyay inaan wax walba oo ku qornaa aan ku raaxaysto oon dhigo raaxeeyo oon xafidoon barto markii dambena qalbigayga ayaa siiyo